xaaladda ganaansho ayaa saaka laga dareemaya deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud halkaas oo ay maalintii shalay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah inkastoo ay hor fadhiyaan maleeshiya beeleedkii halkaas ku dagaalamay waxaana markale laga cabsi qabaa inuu dagaal kale uu halkaas ka qarxo labada beelood oo walaalaha ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku dagaalamayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxayna isku haystaan dhul daaqsimeed halkaas ku yaala waxa jira baaqiyo nabadeed oo ay dirahayaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxgaradka dawlad goboleedka Galmudug ay u dirahayaan beelaha walaalaha oo halkaas ku dagaalamaya ayagoona ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan dagaalkaasi dawlad goboleedka Galmudug ayaa dhowr jeer baaqiyo ka soo saaray dagaalkan waxayna ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaaladan ka soo cusboonaaday deegaanada ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer ciidamo kala dhex dhigtay labadan beelood ilaa xilligan ma jirto waxa iska bedelay colaadii labadan beelood u dhaxaysay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo beelaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa saana kala baaqiyo kala duwan oo soo saaray si kastaba aatee maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug waxa ku soo laalaamayay dagaal beeleeyada iskaga hor imanayaan beelaha walaalaha iyo deegaanada si wada dega